wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Sees oo baryahanba safar shaqo ku marayay gobolada bariga Soomaaliland ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo waxaana wasiirka iyo wafdigiisa duleedka magaalada Ceerigaabo kaga hortagay halkaana si diiran ugu qaabilay maamulka heer gobol iyo heer degmaba mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaag iyo saraakiisha ciidamada gobolka Sanaag waxaana ugu horeynba munaasabada soo dhaweynta ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Sees oo ka mahad celiyay sida maamuus kale ee loogu soo dhaweeyay gobolka Sanaag isagoo sharaxaadna ka bixiyay ujeedada safarkiisa in badan baan soo soconay waxaan u soconaana waxa weeye inaan ogaano xaaladda guud ee beeraleyda ee gobolka Sanaag inaan ogaado ku horgalo waqti badan baynu wada joogaynaa waxaynu ku horgalaynaa oo aan u socdaa waxa weeye inaan ogaado beeraleyda xaaladda ay ku jirto si aan aniguna wixii awoodayda dawlad ahaan iyaga wasaarad ahaan baan u qabanno marka dib waynu is wareysanaynaa waynu wada joogaynaa wixii talo midaysan baynu ku wada dhaqaaqi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo laakiin marka halkan kelmadaan ka horeeyaa waxa weeye gudoomiye iyo ciidamada qalabkasta iyo dhammaan beeraleyda iyo saxaafadaba aad iyo aad baad runtii ugu mahadsantahay soo dhaweynta waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Sanaag Maxamed Yuusuf Degel maayir ku-xigeenka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Saalax Cabaase mas'uuliin kale oo tiro badan iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro oo dhammaantoodba si isku mid ah ugu soo dhaweeyay wasiirka iyo wafdigiisa xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo halka waxa inoogu yimi wafdi oo hogaaminaya wasiirkii wasaaradda horumarinta beeraha waxaan ku leenahay wasiir halka waxa taagan dhammaan dadweynihii gobolka Sanaag oo isugu jira beeraleydii iyo madaxdii gobolka mudane wasiir waxaan kugu soo dhawaanaa maanta aad si fiican kugu soo dhaweyno magaalo madaxda degmada Ceerigaabo gobolka Sanaag aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa wasiir gobolka Sanaag waa gobolka ugu ballaaran horta gobolada Soomaaliland waa gobolkii wanka galay berigii wada World Bank tartankii beeraha loogu jiray waa gobolkii wanka galay waxaanu u baahanahay maadaama aanu islaanahay inaanu xagga qacantiina wanka ka galno insha Allah wasiir waa gobol qudrad aad u badan baa ka baxda mushkiladda haysatay laakiin wadaan bay lahayd alxamdulillah waa tan wadada inoo furantay dhawaan tareelayaan oo ka soo raro basal iyo barandha waxa ku arki doontaan Hargeysa insha Allah يوسف عبد حسن عبد تلفزيون عالمي يونيفرسال مقالة عريقابو